markaas qisa kamid ah qisaska tabliiqa oo halkan ku taala uu ka hadlay markaas midiga kamid ah si markaas uu jeclaysiin dadka khuruujka iyo bixitaanka la baxo jamaacadooda markaas dunia wuxuu ku leeyahay markaas hadda markaas dhigto uu ku leeyahay koob shaaha meel oo sonkor ku jirto aad ku dhaqaaqajin sonkorta kadibna aad cabto ku leeyahay ma dhadhamayso sonkorta macaankeeda laakiin markaad ku dhaqaajiso way ku dhadhamaysaa sida waxa haakada iimaan buu ku leeyahay sidaas kale ah iimaanka ayaa ah oo iimaanku wuxuu ku leeyahay mawjuud fi kulli qalbi ومركز يوجوغا في قلب كل إنسان هو موجود بكلي قلبك السبن هذا وجوغا مرة نبو كل إلى مركز يغلب حنش معه أريد أن أسنوار مركز أرد لا يبلوي المركز هذا كبني آدم كقف كاستقل بيسايو كجرا إيمانكو منافقين تي مرتدين تي وكفار تي وحسن مكجرا المسألة صورة تجري سما وعلى مركز وحيابها مركز لو شاكية يا مركز كمدا مقالدات كجماعة التبليغ تاسو مركزي كمدا متلاعب أتكي كسبان مركز الشريعة هي عيارة مركزي أي كل عيارة شرعية يقول دوني مركزي انتو كل بحان سياسة كلا مركزي جماعات كأردن أي مركزي إن مركزي يقول يران ذكا إن يصور راعان مركزي حسبه ذكو صوب يران يقول مركزي وحي دارنا يعني مركزي الدينهين أي مركزي أي كوبلانت marka ma naaco firbadin dadka markaasi xalleynaa marka hakadib toonada waxyaabaha noocaas oo lagu sheekanay kale kuwa kale lamid ayaa ku yaala kitaabkan waxa qoray sheekh Rabi' ibn Muqbil Rabi' ibn Umar sheekh ayaa qoray marka qisooyin kala nooc ah markaasi ku jira iyagoo kala fara badan xayawaanka sidoo markaasi midiga ka sheekanay kulliye xayawaanka bisadaha ayaa kala garanay xalaashii xaraamta waxyaabo noocaas kala hadii bisada xalaal iyo xaraam kala garanayso waxdan iyo waxa jaaba kuma jirteen rasuulkii markaas rasuusha loo soo diray dadka kuma